dahfuurka aan ku dahfurayno buugaagta halkan taalla sambalkeeda oo gaarayso dabacaddoodu gaarayo ilaa 1,040,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku raahdaa diyaarinta macallimiinta casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu mahad celiyo maxaa yeelay annagu dawladdan muhiimaddeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini aadanku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur uu soo saaro ayay ku xiran tahay xaqiiqatanna runtii sidaa aad sheegtay 3 sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan wax barnaa 65,000 oo arday ah insha Allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn aan gelino in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba oo aanan awood u lahayn iskuullada inay aadaan private-ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino runtii halkan waxaa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la geliyey aad iyo aadna waxaan uga mahad celinayaa Beder kaalinta uu ka qaatay daabacaadda oo aynan ka doonan dibadda macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaanshaheenu maalinta ka dambaysaba inuu gaarayo horumar tallaabana aan hore u qaadayno mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid waxaan uga mahad celinayaa runtii kaalinta aad ka gasheen ama kaalinta aad ka qaadateen sidii aad barashada carruurteenna aad kor ugu qaadi lahaydeen marka waxa keliya aan ku horumari karno ama aan dalkeenna hore ugu dhaqaajin karno waxay tahay annagoo taya waxbarasho carruurteenna siinaa haddana runtii waa u soo jeedaan shaqo badanna waa qabateen waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badanna in aan ku darno iskuulo kale kordhino tirada ardada kordhino tayadoodana aan kor u qaadno taasaa noo ballan ah taas markaan gaarno xaqiiqatan waxaan gaaraynaa dal la tartami kara dalalka kale caalamka la tartami kara oo si degdeg ah aan maxaan ku raahdo ula jaan qaadi karno annagoo og dadkeenu inay yihiin dad talented ah ilaahay siiyey hibo siiyey dhinac walbaba marka haddii aan siino fursaddan ama toolska aan siino ardadeenna inay noqon karaan arday ama dad dalkooda wax tara horumarkiisa iyo dhismihiisana ka shaqeeya insha Allah waa ku garab taagannahay hadday tahay dhaqaale hadday tahay dhiirigelin ku garab taagannahay maxaa yeelay waxaan garab taagannahay inaan ardadeenna tayeenno waxaan garab taagannahay ardadeenna inaan siino mustaqbal wanaagsan inaan siino ardadeenna oo noloshoodana ku dhistaan dalkoodana wax ugu qabtaan caalamkana kula tartamaan marka hambalyaan idin leeyahay wasiir hambalyaan idin leeyahay insha Allah waa intaasan uga sii dhawaano aan hor uga sii qaadno